وعصري البحنبدي مايانكا لبكن يلح بغلاص النو عسهرتي شجر باو يا قبيل كيسو وحي هايين قبيل نبطون وقرصتو سيدا إمك هيدين موقتها waxay si farshaxanimo leh u gaarsadeen doofaar waxay ahaayeen kuwo faraxsan hilibkiisana kala qaybsada jabaq ayaa dhagahooda ku soo dhacday waxayna dareemeen inayna kaligood ku ahayn kaynta waa qabiil la soo barakiciyey dhulkoodiina cadow ka soo saaray daal yarfaad badanna uu ka muuqdo Flint Sky oo ah hogaamiyahooda ayaa u sheegay in hubka ay hoos u dhigaan weydiiyeyna qabiilka qaxaya waxay rabaan waxay u sheegeen inay doonayaan inay dhaafaan wadada hilib kalluun ay wadeenna u siiyeen wada maris yacni cashuur oo kale way ka gudoomeen waxayna si nabad ah ugu ogolaadeen inay ka gudbaan qabiilkii iyagoo wada qaxaya caruur iyo waayelba nabad ayay ku dhaafeen Sugar Bow ayaa is idhi weydii sababta ka soo barakicisay dhulkoodii balse aabihii Flint ayaa joojiyey waxayna dib ugu soo noqdeen guryahoodii waxay ahaayeen qabiil tirayar oo aad isku jecel habeenkii odayga qabiilka ugu weyn ayaa ugu sheekayn jiray qisooyin iyo xikmado u soo joogay waxayna si nabad ah ku seexdeen habeenkii waa berigii hore waxaa ka soo duldegay ciidan aan arxan iyo naxariis toona lahayn Sugar Bow oo ahaa mid ay riyo xunay hurdada ka kacisay sugayana intay qorraxdu soo baxayso ayaa waxa uu dareemay shanqadha dibadda ayuu soo istaagay waxa uu arkay dabka ay wataan ciidanka duulaanka ahi waxaanu si dhaqsaa u kiciyey xaaskiisii tuulada yari waxay noqotay mid iyaga oo aan diyaar ahayn ciidan awood lehi ku soo dul habsado gumaystayaashu waxay ahaayeen kuwo guryaha dab qabadsiinaya raggana xadhkaha u seeteenaya Sugar Bow waxa uu xaaskiisa oo uur leh iyo ilmihiisa ula soo cararay dhanka ceelka ay biyaha ka cabbaan oo aan ka dheereen guryahooda ciidankan soo duulay waxay ahaayeen kuwo tababar xoogan qaba halkooda ninna uu la dagaalami karayo 3 nin dhammaan raggii qabiilkan yaryaraa waxay noqdeen kuwo si fudud gacanta loogu qabto xadhkahana loogu seeto dheereeyo inkastay ragga qaar si adag u dagaalameen umanayna kala aabba yeeleen caruur iyo haweenba guryahoodana la wada gubo si ay meesha barkicin caadi ahi uga dhacdo dagaal foolka fool ah oo ay ninkaas kaga soo horbaxeen Sugar Bow waa dili gaadhaya balse waxaa ka badbaadinaya commanderkii ciidanka watay taasoo ka dhigaysa in ninkani uu il gaar ah oo nacbaashiya uu ku soo eego Sugar Bow waxaanu si uga argoosto ku hordilaya aabihii taas oo aabihii uu ku odhanay Sugar waxaan dhintay anigoo dagaalamaya sharafna way tahay wiilkaygiiyow geesi ayaa tahay ninkan manaxaanka ahina tooreyda ayaa uu dhuunta ka marin doonaa waxaana socod dheer loo soo geliyey dhankii boqortooyada iyagoo safar habeena qaatay la soo maray webiga gadaashiisa iyo dhul buuraley ahba markay boqortooyada u soo dhowaadeen waxay indhahooda qabteen addoommo badan oo buuro iyo dhagaxaan lagu jebinayo qalcadana lagu dhisayo waxay noqdeen kuwo lagu sunto rinji buluug ah dumarkoodiina iyagoo arkaya ayaa addoommo ahaan loo kala iibsaday waxa ay albaabka ka galeen dabaqa dilista cabsiduna waxay ahayd mid laabtooda dhex degtay halka ciidankii soo qabtay ahaayeen kuwo kalsooni u socda sankana taagaya kumanaan qof ayaa diyaar u ahaa inay u dabaaldegaan qaabka loo qorjarayo dhiiggoodana loogu sadaqaynayo shadaadinta qalcadda halkeeda sare waxaa saaran boqorka iyo qoyskiisa iyo sidoo kale sixroolaha iyo dilaaga qoorta ka jarayaba dilku wuu kala wanaagsan yahay qofka isaga oo nool ayaa wadnihiisa laga soo saarayaa waxayna u sadaqaynayaan shadaadinta ay caabudaan wadnahaas oo inta dabka la dhex geliyo sixrooluhu u eegayo in shaydaanku aqbalay iyo in kale halka haddana madaxa laga goynayo qofka
sidii kubadoo kalena jaranjarooyinka laga soo tuurayo. dhowrkii nin ee horreeyey ayaana sidaa loo dilay. bartanka ayaa lagu jiraa dabaaldegyada. iminkana waxay taagan tahay markii jugar bow wadnihiisa shadaadinta loo sadaqayn lahaa. sixiroolihii waxau ka dul yidhi kelmadihii sixirka, waxaana dhabarka loo saaray halkii qoorka jarista. balse nasiib wanaag waxaa madoobaaday qorraxdii, taasoo ka dhigaysa in dhiiggiisu xaaraan ka yahay. boqorku waxauu komandarka ku amray qaab kale inuu dilo. dil ayay ka soo badbaadeen, haddana qaab kale oo loo dili lahaa ayaa loo wadaa. neef weyn ayaa dib ugu soo booday jugar bow, balse ma oga ciqaabta ku xigta ee lagu wadayo inay iyana tahay diluun. waxaa la keenay farxadda dilka, waxaan lagu yidhi ma aragtaa gallayda gadaasheeda? waa kaymihiinnii. ninkii gaadhowna waxaad tahay nin xor ah. hadda orod oo carar ayaan idin idhi, balse halka shardi waa inay ka badbaadaan warmaha iyo leebka lagu soo ganayo. labadii nin ee u horreeyey waxuu nasiibku ag mariyaba waxay noqdeen kuwo si fudud dhulka loo dhigo. dhaawacoodana waxaa nafta dhaafinaya wiilka yar ee uu dhalay komandarku oo gacanta lagu fadhiisinayo dilka. waxay gaadhay jugar bow markiis. waxay orod ku bilowdeen qaab xirfadaysan, isagoo isla fahmeen ninkan ay wada ordayaan. dhammaan dagaalyahanadu waxay ahayd kuwo shiishkooda aad u sarreeyo. falaadhuu soo ganay ninkaasina afka ayay ka soo baxday ninkii kale. jugar bow ayaa keligii soo hadhay, balse komandarka ayaa leebkiisa aan la waayeyn. wuxuu noqday mid dhaawiciisu uu dhulka yaallo. komandarkuna meel fog ayuu ka soo daawanayey, balse lugaha uu saga maray ninkii kale waxay gaadhay in wiilkii u dhalay komandarku oo toorida dib ugu celiyey jugar bow, kaasoo cunaha dib uga geliya. naflacaaridkii ayaa uu halkaa ku dhacay. jugar bowna dhaawiciisii ayaa ula soo kacay. uqaadanwaa ayaa ku noqotay komandarkii, waxaanuu ballan ku maray tooridii ku dili inuu ku dili doono. waxaa laissoo eriiday kaymaha dhinac kasta keentaa. waxay seeryadaanba oo ay ku jiraan orod iyo raadraacashaba. waxaa jugar bow soo xidhayaa webiga oo kaga soo beegmay biyo dhaca aadka u dheer. waana inuu go'aan qaato inuu wajaho ciidanka isagoo bilaahuba ama inuu ka boodo biishubkan aadka u dheer. waxaanu go'aan ku qaadanayaa inuu biishubka uu ka boodo. waanu badbaadayaa isagoo dabaal koonaha kale ka soo istaagaya. jugar bow isagoo si kalsooni ah u taagan ayaa wuxuu ku yidhi, waxaan ahay jugar bow inankii flint sky. aabbahay halkan ayuu ku ugaadhsan jiray aniga hortay. magacayga waa jugar bow, waxaan ahay ugaadhsade. halkani waa kayntaydii. mid ka mid ah ciidanka ayaa boqay oo yidhi, buurta haynu ka soo dadegnay ayaynan boodin. balse waxaa si deg deg ah u dilay komandarka isaga oo adkeynaya hoggaamintiisa. wuxuuna amar ku siiyey inay dhammaantood boodaan. waa ay soo boodeen dhammaantood. waxaa imika jugar bow u bilaabmay baabkii ugaadhsiga, halka ciidankana ay u bilaabatay albaabkii cabsidu. xirfaddii koowaad ee adeegsado waa shinni, taasoo ah inuu ciidanka ku kala qaybiyo. iminkana waxuu soo jabsaday qodxaan, waxaanu raha ka marsanayaa sunta ku jirta dhabarkiisa, kaasoo ku afuufayo mid ka mid ah ragga oo kaasi u dhimanayo suntaas. iminkana waxay cidlays ka helayaan ninkii aabbihii dilay, isagana guumaystay. way isku soo ordayaan isagoo bow si kalsooni leh u ordayo, aan hubna wadin. waxau ku xisaabtamayaa meydka dhexdooda yaalaa hubkiisa. waa uu ka hoos tusayaa. waxaanu soo qaadanayaa faashka, isagoo gacan culayskuu muujiyey gumaystuhu ka faa'iidaysanaya ayaa uu madaxa kaga dhufanayaa darbo xoogan. falaadhuu soo ganay komandarku ayaa ahayd mid kaga dhacda laabta jugar bow. waxa uu la soo baxay tooridii uu ku dilay inankiisa, balse ma ahayn mid arkaya khatarta ku cararayo. komandarka cadhada ayaa ka badneed. waxuu jaray xadhigga, waxaana ku soo furmay dabankii warmaha lahaa.
sidaas ayaanu ku dhintay komadharkii aad naxariista aqoon aargoosigii wiilkiisana u socday. ugu dambayn sugar bow wuxuu ka gaadhay xaaskiisii u ballan qaaday inuu soo noqon doono waanuu badbaadiyey si nabad ahna ayaana ku noolaayeen kaynta.